السلام عليكم أصحابتي دقاليقة سودو meel kasta joogtiin waniga walaashinina mar kale soo noqod wanaagsan maanta maxaa inoo wada reaction kaleete heestii maalmahan dambe oo social media la isla dhaxwaday Najmi Nashaad ka hadlaysay dumarka Soomaaliyeed caadiga by family ahaan markii single mother noqdaan ama xaaladaha adag ee ilmaha ku korinayaan iyo nolosha dhabta sida uu abaaraysa la sacad wanaagsan waxaan rajeynayaa inaad subscribe ii saartay haddaad hore noola joogtana waad ku mahadsan tahay joogista iyo ka warqabka channelkeena haddaad cusub tahay please nagu soo dhawow family kusoo biir waxyaabo badan ka heshid waad naga arki doontaa insha allah. Welcome guys, isla socod wanaagsan. heesta magaceeda waxaa la dhahaa rag baan caashiqa dareemin. marka Najmi Nashaad aan soo qaaday, director waxaa ka Mustafa Suleymaan. oyo maamada canjaradeeda isku dubanaysa hooyo macaana horba waa canjari shaax ku bilaabatay saaka ya canjari shaax dhaaftay kale aniga ima dhaafin. fiir ilmaha hortooda lagu aab Soomaaliyeed ilmaha dhan wasla wada fiirinayaan. الرقبان عاشقة تريمين رقبان عمشادة دناينين رقبة ديقة شذا كعانو سمانتنا دوري كقاذا ruwaay samaanteeba markii wanaageeba waxay ka qaadaanbo isla weynay kibir iyo dabdara. الرقبان عاشقة dareemin رقبان عمشادة دناينين رقبة ديقشادة كعانو سمانتنا دوري كقاذا يقاد البشر ضابورا هادنا تمقش هذا إلاوي إمي سايد ربي يقاد البشر ضابورا هادنا تمقش هذا إلاوي كو جعلك iyo wax kasta iyaga kasbanayo macna tareenka oo labadan qof isku keenay raga ka dambeeya kadibna ayaga leh damqashada xanuunka iyo wax kasta ayaga ma marayaan. هذا كدافين إمي سايد لو يذا كتورين نقول دمرات علاتي نقول دمرات علاتي maamadan waa howlkar fiiri si ilmaheeda ay ku karsato darteed hataa ninkeeda uu ka tagay waata ciyaalka asiga uu fiirinayeen asiga ay fiirinayeen hooyadood waxaan ku hor sameeyay uu meeshii kaga dhaqaaqay. hadda waxay bilowday inay shaqeysato masaf ma laha xaarin ma laha wax ay ku wareejinaysaa raashin saan ilmaheeda inay ku karsato ee bariis meel isaga soo saar lahaayeen meesa daadan sidoo kale meesa dayicin asiga uu ka tagay laakiin ayada keep going dad badan saana يقاد البشر ضابورا هادنا تمقش هذا إلاوي إمي سايد ربي هذا كدافين إمي سايد nimankana ma bakal jeclaa ninkii waa kana waxbuu ciyaaraa dibnad ma allah ma aqaani wax nimanka لو يذا كتورين نقول دمرات علاتي نقول waxaa la tumaaya masigamya waxbaa la tumaaya. wallaahi nolosha dhabtaa ee Soomaalida waatana
wabiyartahaba qof oo sidan aan soo marin qarniga joogo nugul dumaro jeclaatay hayeeshee darsaa kordhayo dunidu shalay ma joogtee intii dibiliyo haweenka dardaaran waxaan ku siiyay oo xaax gacanteeda sidii ay u garaacaysay mooyga macna kasha sidii uu heesaasa kashiya murxisay dabciga aragtaan dhigiisa nolosha dariskuulaada dabcigaad aragtaan dhigiisa nolosha daris kulaada nolosha daris dadkan dhan waa maamooyin haddana shaqaysanaya sababta qoraxdaas baday ama inay wadadaas dhexdeeda ku shaqaystaan waa si ilmahooda barmeel ay ugu saar lahaayeen kulaada hayeeshee darsaa kordhayo dunidu shalay ma joogtee intii dibiliyo haweenka dardaaran waxaan ku siiyay dabciga aragtaan dhigiisa nolosha dariskuulaada dabcigaad aragtaan dhigiisa nolosha daris kulaada nolosha daris kulaada ragaban dulqaad ka xeerin ragaban xilahooda doojin ragba gabadhan kaleetan iyada ninkeeda kasoo carootay waa ka walaasheed camal waa jilaysaa najma laabta ay gelinayso aamusleeda waa laga gudbayaa rag baa dulqaad ka xeerin wadkooda dayrsho dalaaqdana sahal ku dhiiba ma ubadkooda doorsho dalaaqdana sahal ku dhiiba waa run nimankaas ayaga ilmihii waxaas kama fikiraanba gabadha intay qurux badan tahay waa qaftiisa maalintuu arko inay ilmo dhashay iyo gurigiin baroblemia culays badan uu kusoo saa'iday gabadhan isku buuqsanta meeshii laga rabo inuu farxad siiyo garab istaago uu marar badan kana siiyo wuu ku buuqayaa kadibna nolosha sidii ku burburta usoo maahan maskiintii needeeda iyada dhanba ragaban dulqaad ka xeerin ragaban xilahooda doojin ragba ubadkooda dayrsho dalaaqdana sahal ku dhiiba gabadha hadda way ka shekeynaysaa wixii ku dhacay taan waa la wada murugaysan yahay guriga adduunyada ka raaca duruufta midii ku haysee dankaaba maxay ku ciileen imisay dibadaha ka aadeen nasab dumaro xishood leh nasab dumaro xishood tira adduunyo iyo lacag meeqa dibadaha ka aadeen nasab dumar oo xishood leh ana gabar yar oo iska asturan oo iska xishood leh maasha Allah meeqa ka tagayeen dibadaha ka aadayeen ee adduunyo ku doorsanayeen ayaga adduunyada ka raaca
nafta midii ku hayse andan qaaba maxay ku ciileen imisay dibadaha ka aadeen nasaba dumaro xishood leh nasaba dumaro xishood leh darsaa kordhaayo dunidu shalay ma joogtee intii dibiliyo haweenka dardaaran waxaan ku siiyey dabcigaad aragtaan digiisa nolosha dariskulahaaga dabcigaad aragtaan dabeecadad ku aragteen asigana nolosha dariskula ahaada micnaha digiisa nolosha daris kula aaga nolosha daris oo daris kula aaga hayeeshee soo qabta kaamirada waa meel wada qurux badan saa kordhaayo dunidu shalay ma joogtee intii dibiliyo haweenka dardaaran waxaan ku siiyey dabcigaad aragtaan dhigiisa nolosha dariskulahaaga dabcigaad aragtaan dhigiisa nolosha daris kula aaga nolosha oo kula aaga meel kaste waxaa fadhisa gabar qurux badan oo haddana ganacsanaysa sababta ku kalifta mataqaanaa inay qoraxda wax ku gado waa ilmaheeda darteed hooyo baar wax dhala waa jidka ilmo ogama tagaysa laakiin aabayaasha qaarkood ma ujeedaan dabcigaad aragtaan dhigiisa nolosha daris kula aaga nolosha oo daris kula aaga wallaahi heestan qisa dhab ayay xambaarsan tahay sababtoo horta fiidiyowga ninkii maxaa lahaa directorka ka ah wuxuu ahaa qof aqli badan sababtoo fiidiyowga iyo heesta uu isku soo saaray 90% way ismudan yihiin sida uu isugu agaasimay wallaahi waa qof maskax badan sababtoo halahan qof oo chilling sameynayso sidii tabta ahayd inuu u dhex taagan yahay umaleysa treenkii saxda ah qofka inay dhibaatada haysato camal imagine inta waqti lagu bixiyo heestan wallaahi horta wacyigelin qurux badan waaye dumarka Soomaaliyeed inay shaqeystaan fadhiga ka kacaan ilmahooda korsadaan weligeedna kartida soo lagu yaqiinay hooyo Soomaaliyeed oo ilmaheeda jidka uga taraysa lama arkin badankii aabayaashan waxaa rajeynaa sida hore horta waaba ka roon yihiin hadda inay kasii fiicnaadaan oo nolosha fahmaan oo gabdhaha aan la dhibin sagal wada maate bye halaas waa jiraya marka hadda meeshan waxaan kusoo gabagabaynayaa fiidiyowgeeni heestan waxay ahayd hees qisadeeda ama dareenkeeda xamaasadeeda intaba wadato isla socod wanaagsan qayaarta qaaliga ah oo ku maasantaa daawashada fiidiyowgeena ilaa intan isla soo gaartay love you guys bye soo noqod wanaagsan aragtidan boo xiisa leh please comment-iga nooga dhaaf ra'yigaaga bye bye